بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله. ما أنت واحد نوالكن كنتوا بينا تحجبيا أو كوبان أو ديرين أو كفتن مجاعيدنا الله يرحضه شاشالي. سيد مجاعي سبك موقتا جبايجو وشاشالي. وعكاد ليا waxyaabo fara badan oo nolosha iyo siyaasadda waddanka ka taagan quseeya wuxuu kala magacaabayaa shakhsiyaad gaar ah oo siyaasiyiin ah oo waddankeena laga yaqaan oo mid walba dhaqan ama dabci uu caam ku yahay oo ummaddu ku taqaano oo ku xusaayo gabaygu ragga uu la kaftamayaa raalli hallaaha wuxuu gabaygu ku bilowday jaajaale jamhuuriyaddan waxa aan ku nacay waa bilaajaho jamhuuriyaddan waxa aan ku nacay waa bilaajaho dalkii koox jumladataan u nacay johoradiisii junuud dhowr wasiiraan u nacay sheeko jaan rogan dar kalena jallaafaan u nacay jaamacow badan judhaba waxaan wasiir qabo ku nacay erayo jaajaa sacadna jilicsanaantaan ku nacay laba jawaablaah maxamuudna jeeskaan ku nacay reer jeclaysiga jibbona ina caddaannaan ku nacay oo hinjeestada cukusana gerjigantaan ku nacay muranjikaaraa duqana jaakidhaaddaan ku nacay juuqba jaaqlada duqu waa madaxweynaha maahmaha soomaaliyeed baa tidhaahda laba aamuskay ku fiican yihiin oo waa doqonka iyo diradiraalaha labana hadalkay ku fiican yihiinoo waa duqa reerka iyo diinfidiyaha markaa dee madaxweynaheennu waxay ahayd ila waa duqeenniye inaanu inaga aamusne uu inala hadlo oo inoo warramo oo ina waaniyo dalka waxa ka jira xaalado xasaasi ah hadday tahay xaalad dawlad xumo iyo xaalad doogsin la'aaneed waxa ka jira xaalado badan oo sixir bareer ka mid yahay marka xaaladahaas oo dhan inuu madaxweynuhu inala dareemo oo inala hadlo oo waxa la yiri rag aamusay iyo riya aamusayba reerkoodii gabe aynu madaxweynihii kala war helo ayay ahayd laakiin madaxweynuhu uu aamusay haddii uu aamusayna labunbuu mid la aamusa ama jiruu la aamusa ama jaakiraadbuu la aamusa yacni ama xanuun ama xeelad odhan mayno madaxweynuhu wuu jiran yahay oo wuu bukaa ilaahayba kuma keeno bukaane waxaan filayaa waxa uu la aamusan yahay inay jaakiraad tahay oo ay xeelad siyaasadeed tahay oo arrin siyaasadda ka mid ah ay tahay wax walba ka yaab markaa duqana jaakiraadaan ku nacay juuqba jaaqlada xadhiguu ka jaray baan ku nacay jaako saylici madaxweyne ku-xigeenkii cabdiraxmaan saylici doorkiisii howleed wuxuu ku egaaday maantana meel buu xadhiga ka jaray iyo xaflad lagaga hadlaayay HVIDs ayuu haddii alla raalli ka noqonaya ayuu joogay guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba ah guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba ah guurtidu waxay ahaayeen golo dhaqan ayay ahaayeen golo siyaasadeed may ahayn golo samatalis bay ahaayeen golo dawladeedna may ahayn golo dadweyney ahaayeen golo naxle may ahayn golo nabadeed bay ahaayeen golo guulwade may ahayn golo guurti bay ahaayeen laakiin guurtinimadii way dhaawacantay laba qodob baa dhaawacay qodobka koobaad waxa weeye raggii guurtida ahaa ee Soomaaliland abaalka ku lahaa ee nabadgelyadeeda ka shaqeeyay oo baxay allaha u wada naxariistee iyo oo ragga meesha joogay bedelay ay yihiin inamadoodiyo aan guurti ahayna dhalinyara marka wixii inaan yari lahaan jirayba leh inamada guurtidii bedelay waxay noqdeen inama yaryaroo wixii inaan yari lahaan jirayba leh
qodobka labaad ee guurtinimadii dhaawacay waxa weeye gudoomiyaha golaha guurtida oo ah nin siyaasina waynu naqaanaa marka guurtida jaqaaq baan ku nacay jaamba saleebaan juqaalkan ku nacay jaahilku yahay Salebaan Maxamuud Aadan waa gudoomiyaha golaha guurtida jaahil markaan leeyahay jaahilnimo aqooneed ma jaahilnimo akhlaaqeed ayaan sheegayaa gudoomiyaha habdhaqankiisa aad yara moodaa inuu habdhaqan jaahil yahay waxaanu leeyahay gudoomiyenimadiisa waxay ku soo ururtay Salebaan 3 qodob qodobka koobaad waxa weeye haddii mashruuc dawladdu wada taaba yimaado oo guurtida la hor keeno socodsiiya qodobka labaad waxa weeye haddii xildhibaan golaha ka mid arrintaa ka hadlo xildhibaanka saara qodobka saddexaad waxa weeye haddii doorashada la soo hadal qaado xukuumadda sanad ugu dara saddexda qodob ay gudoomiyanimadii Salebaan ku soo ururtay waa socodsiiya mashruuca dawladda saara xildhibaanka ka hadlay iyo sanad ugu dara xukuumadda Salebaan juqaalkan ku nacay jaahilku yahay wakiiladana jawrkan ku nacay jeeba buuxsiga cirana jugaha feerkan ku nacay jiimka diriireed muusena jafaafkan ku nacay jaaha giir kale jirjiroolannimadan ku nacay Faysal Jibirjaan jilbisnimada halistan ku nacay jaraha buuba jinka waran cadana waxaan ku nacay jaga xildoondoon Axmed Muumin jalaqdan ku nacay hadiya jeeraal awil soo jireenkan ku nacay uur jiriidlaha Jaxar Maxamed Xaashaan u nacay gooni joognimo Jaxar Maxamed Xaashi ayaan u nacay gooni joognimo jifiyo buur madow baan u nacay jilib xayeysiin cali gurayna jibintan ku nacay jiidha aadmiga jamaaliyadna hebel baan u nacay jooga quruxeed laba nin buu gabaygu qariyay laba nin ayuu magacyadooda qariyay marka waa hebelo jamaaliyadna hebel baan u nacay jooga quruxeed waa nin quruxun la shiriyimi ragana qurux loogama baahnay qiimaha looga baahay ninka uu qariyay magaciisa gabay ninka labaad waxa weeye shalfis dagamsan iyabaan u nacay hebelna jaajuus ninkaasina basaasnimo inoolayin reer saaxil jiibtan ku nacay jaan la'aanta jujuub dhiibbi walbaan u nacay nalama joogtaan jaakeedna keedaan u nacay jarane feedha waa jaakeed yaroo dirays oo shirkaddan dhiibbi wale dekadda la wareegtay ay u gelisay shaqaalaheedii jaakeedna jujuub dhiibbi walbaan u nacay nalama joogtaane jaakeedna keedaan u nacay jarane feedha jeegaanna taasaan u nacay labada jiidood jariimado dagaal waxaan u nacay janaanadeennii jaad lagu kiraystaan ku nacay jiifafkii dhaqan garsoorkana janjeer baan ku nacay jebinta qaynuun jigjigaan u nacay dhaantadii gabayna jiiftayn jigjigaan u nacay dhaantadii gabayna jiiftayne jid la mariyo waxa aan u nacay jaar Itoobiya waxaan jiilkan heesaha u nacay jiidi waa laxan asmacoday jacayl baan u nacay cudurna juudaan jilis qootaan u nacay jaalna reer xamar jabhadna SSC baan u nacay reer jubbana sheekh jawi kululna xeeb baan u nacay hoy la jiifsado jamacna mawlacaasaan u nacay jeenigaa rogan hablii jimidhyaraan baan u nacay jilabka laaleeg jirrina wiilashii baan u nacay jeega xiiraa jiilaalna waxa aan u nacay maanta kaa jira jaajaale halkaasuu joogaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu